wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan iyo wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo ayaa deegaanka Warcibraan ee gobolka Togdheer ka dhagax dhigay riig biyood cusub oo ka mid noqon doona kuwa ugu dhaadheer ee laga hirgeliyo dalka. degmada Warcibraan ee gobolka Togdheer ayaa ka mid ah deegaamada baahida weyn u qabay biyaha kuwaasi oo maanta ka faa'iideystay siyaasadda ballaadhan ee wasaaradda biyuhu dalka iyo dadka reer Somaliland ku gaarsiinayso mashaariicaha horumarinta kheyraadka biyaha. noloshu waa biyo, biyuhuna waa nolol, waa halkudhiga siyaasadda iyo qorshaha lagu najaxay ee ay ku duulayso wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee uu garwadeenka ka yahay Cali Xasan Maxamed oo wada gaadhay dalka. boqolaal ka mid ah dadweynaha degmada taariikhiga ah ee Warcibraan ayaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka iyo wafdiga la socda kuwaasi oo sitay boodhar waaweyn kuna dhawaaqayay halkudhigyo ay ku muujinayaan waxqabadka ifaya ee uu dalka ka qabtay wasiirku. munaasabad kooban oo lagu qabtay bugcad ballaadhan oo ku taala gudaha degmada Warcibraan ayaa waxaa ka hadlay ugu horeyn maayirka degmada Warcibraan ku-xigeenkiisa odayaal iyo qurba joog uu ka mid yahay siyaasi Maxamed Qushi kuwaasi oo dhammaantood ka mahadnaqay riigan wasiirkana ku tilmaamay mid rusheeg badan. sidan ballaadhan aan noogu timaadeen sidaan noogu soo daadihayseen riigan aad iyo aad loogu baahan yahay aan noogu soo daadihayseen ayaanu idinka mahad celinaynaa. waxaanu idinku soo dhawaynaynaa qalbi furan iyo gamca fidsan ayaanu dhammaantiin idinku soo dhawaynaynaa intaa leedihiin. waxaanu mar labaad u mahad celinaynaa wasiir Cali Mareexaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiir. maalintii isugu kan dambeysay halkan aynu joognay waxaanu tirinaynay waxyaabihii hore aad nagu lahayd. waxaanu markaanu tirinay aanu kuu sheegnay riig noo harsan yahay. maanta aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay riigii maalinta aanu codsanaynay aad noo ballan qaaday. waxaanu wasiirka iyo waftidiisaba uga mahad celinaynaa waxtarka ay noo sidaan ee uu u weyn yahay riigaas biyaha oo aan rajaynayno inuu noqon doono mid lagu najaxo oo lagu intifaaco insha Allah bismillaahi kariim. maanta anigu oran maayo dhagax dhig waayo gaadiidkii qodayay qalabkii qodayay baa taagan waa la qodayaa waa la bilaabay baan leeyahay dhagax dhig waxaan u aqaan anigu wax yar haagi doona laakiin waxa leeyahay maanta waa bilow aad iyo aad baad ugu mahadsantahay wasiir. waxyaalaha aan wasiirka ku xasuusano waxa ka mid ah reer Warcibraan anagu dadka halkan goobtan aanu taagannahay ballamaan ku qaadnaa inta badan waayo waa meelaha mas'uuliyiinta qaranka loogu yimaadaan. mas'uuliyiinta qaranka loo yimaada laba qaybood baan u tirinaa ballamaan ka qaadno qayb waxaan inaanaa xaqiiqa ballan baan sida Cali oo kale. aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa wasiir adiga iyo xildhibaan guuleed oo ka soo shaqeeyay inuu hirgalo ceelka maanta Warcibraan laga hirgelinayo. ninkasta ha xaraamo ha xiqo ha wareero sida urbagu xorbaxaya dayrta ku qooqay miciya ha xaquuqo aniga idin xambaariyo sida haysta ayay waraan xaasil ahayn iyo been ha noo xarakeeye xaqiiq baa la hadlaaye haddaan is xaqiraynin wasiirku ba xildhibaana. wasiirka mahadnaq baad ku leedihiin iyo inaad bogaadisaan iyo inaad soo dhaweysaan iyo inaad ixtiraamtaan waayo wasiirkiini ha ogaado codka reerka. saddex nin baa maanta gacanta ku haya cid kale lagaga daba dhufan maayo. badha saabkaa kow ka ah xildhibaan guuleeda laba ka ah aniga saddex ka ah junior siyaasadda soo galaya. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada guurtida maamulka gobolka Togdheer degmada Burco xildhibaanada golaha deegaanka ayaa iyaguna ka hadlay riigan ay wasaaraddu ka hirgelinayso degmada Warcibraan. wasiirka iyo xukuumadda u igmatay inuu wasaaraddan maamulo ee uu kan ugu mudan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad baynu ugu mahad celinaynaa maadaama qalinkiisu wasiirku uu inoo qabtay uu wax badan inoo qabtay oo uu noqday wasiirka wasaaradaha. asaan ku talin lahaa
aad iyo aad baan reer warcibraan ugu mahad celinayaa riiga maanta laynoo keenay ilaahay ha inoo barakeeyo kii biyo macaan soo saara ilaahay subxaana wa tacaala ha inooga yeelo idinkana de waxaa laydinkula dardaarmayaa markaynu ku guulaysano insha allahu tacaala sidii u dar yeelan lahaydeen inta laynoo dhagax dhigay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inoo barakeeyo riig macaan oo barakaysan oo si fudud inoogu qodma in ilaahay inooga dhigo mashruucan qowmiga ee maanta idin hor yaallo xaqiiqatan waa mashruuc dhammaanta iyaduba aanu ku riyooni jirnay in muddo ah in ilaahay degmada warcibraan mar uun biyo joogta ah oo ay ku gaaraan horumar nololeed in mar uun la helo degmada warcibraan taariikh ahaan marka aad dib u jalleecataan kontomeeyadii ilaa maanta 70 sano 80 sano ayay degmadu fac ahaan jirtaa waxaa xiga waxqabad fara badan oo aan la koobi karin oo uu leeyahay wasiirku oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya dhan ku saabsan ilaa ka bari ilaa ka galbeed meel kasta oo aan qaas u ahayn deegaankiisa waxaanu ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka gobolka guud ahaan ceelasha badan iyo balliyada badan ee intaba aad maxay ahaateenay ballanqaadkaagii aad runtii fulisay siyaasadda xukuumadda Somaliland ee madaxweyne Muuse Biixi uu hogaaminayana ay asaas u tahay in laga haqabtiro baahiyaadka asaasiga ah ee bulshada reer Somaliland mudane wasiir waxaan ku leenahay aad iyo aad baa u mahadsantahay marka hore waxaan rabaa inaan u duceeyo cid kasta oo ka soo shaqaysay oo gacan ka geysatay arrinkan khayriga ah ee qiimaha badan biyuhu waa aasaaska nolosha sidii uu halkan inooga sheegay walaalkeen xildhibaan guuleed taasun baan mataqaanaa anna ku garab taaganahay si gaara qoladayada xildhibaanada gobolka togdheer si gaaraan isu garabsanaa bahwadaag baanu nahay walaala ah wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa ka waramay muhiimadda ay ceelasha iyo riigago iyo dhaamankuba ay u leeyihiin dalka ugu horreyn aan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran ee aad noo samayseen ee caadada idiin ah iyo sidii qiimaha lahayd ee halkan uga hadasheen ee deegaankiina iyo baahiyihiina iyo xaaladda guud baa si habaysan oo nidaamsan oo gobonnimo uga hadasheen goobtan oo ah khayriyada warcibraan oo muddo badan aynu isugu nimi oo halkan aynu ka wada hadalnay iyadana aad baan idinka mahad celinaynaa sidaa la sheegay waxaynu maanta halkan ka furaynaa riig biyood cusub oo ceel dheer ah ceelkaasoo dherarkiisu noqon doono 430 mitir wuxuu noqon doonaa ceelasha dalka ugu dhaadheer haddii alla ka dhigo sahankiisa waa la qaaday injineerada iyo shirkadaha ugu fiican dhinaca sahanka biyaha qaaday goobtaana waa la sahamiyey kambaniyada iyo shirkadaha waxqoda kuwa ugu aqoonta badan lana waa loo diray oo waanu u dirnay markaa riigina uu taagan yahay maanta waynu bilaabaynaa un qodistiisii annaka waxaa noo caadaa meesha ilaa riigu yimaado processka oo dhami soo dhammaado oo taawarkii riigga iyo qalabkiisiiba la keeno saa loo qotomiyo meeshaa ma nimaadno oo ma nahno waxbaanu ka qabanaynaa ama waxbaanu ka furaynaa laakiin haddaa aragtaan waa tiifiyada iyo waa ka daawateen baa laga yaabaaye meel kasta annagoo riiggii dul taagan oo la bilaabayo ayuun baanu tagnaa markaa taasaa noo caadaa iminkana sidaasaanu haddii alla ka dhigo u bilaabaynaa waxaa runtii dee waa ballanqaadyadu way iska bataan oo dee siyaasad iyo tartan baa lagu jiraa markaa dawlad tahay ama xukuumad tahay ama xisbilxaakim tahayna kole dad badan baa kula tartamaya oo dad wax wanaajisay iyo haddaad wax aanad wax wanaajinba dee waa intaa waxbaa la isku tuurayaa oo
أنا كفي عنيو أنا برت على أشتي أنا سمد رنشيني يبغى لا يمنيا لكن أنا جوا نقول لي نفيتشري وربط هنا ugu dambayn dadka deegaanka ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland ku maamusay shahaada sharaf ka turjumaysa waxqabadka degdegsiimada rusheegnimada iyo firfircoonaanta wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Absaaq Farax Abdullaahi TV-ga qaranka Somaliland